فاضمة بونا طول على وضع محصنت هاي وحوي أنا مركب رابط الدانو بساعدك السلام عليكم دلابان هاي أنا بوها جيسا ينقل نورا تدني حاجة من السودان بوها أدور حاجة مركب إكحيي إلى هي سورة جلينا وضع غربات تبا وأنا ما عرفت أنا بقى شو الصوماليات إن داون دونتان بس أنا داون يساعد بنو سلامينا إن شاء الله هذين المقلي وإذا إذا ما مقلي نوصل قرأ سينا ناركي سامبان جعلنا هاي وهذا لما أنا عندها لا يتيم كي والدين تاها يستوي بتكبايا كاركا قبا أنت حلك ما شاء الله أنت سوالد بنكو كلنا ولا وانا نبضنا بركايو وشوجو هذا ما شاء الله يمكبوا حوجا والدينا وانا لشوجا معها ما أنت أنا كل جبنا كلنا كيا لنا حق رئيسية حاجة وحنا لشوجتا ولا شيء وفاضمة بوني ويدنا والدين تكمل هاي كين بدنا وذكرنا يان إن شاء الله يدنا وحنا وقتمي خلنا والدين تيا هوشن كلامنا هنا نهاينو أي ما ركت وجاتو وحين دار كان بيلكو يعني إذا إنده هذا قصة عرفته فلله الحمد وأنا لفظ لا قربته إن الفاضمة نوانسود ويننا إن فاضم كسود هو كلنا إن شاء الله بإذن الله الكريم كلنا خير تقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمان والسلام يا والدينته قيمة عليه هالكن اسمه يمين سيدو كانوا حالك سيكارو سلام يا قوضو يوسي كده أو أنتي برنامج كان قرقة بدن له كدربيي إلى سكري كدربيي اسمه كاري تسوي والده أنت سوي والده هايستا أبد باهيو كريتوي تاعي مركا ما أنت واحد كلية تعملي إن عن والدهان عن إسبرانو هذا برنامج القيمة عليه aad ka u kala duwan dhinac kasta la gees ilaa ka gees leh waan ogahay laakiin inaan waalidkii aan is aragno ayaa runtii anagii hoodaba jeclaysanay midun baan idin leeyahay waxaan idin leeyahay waalidu ubadkiinu kama duwana ubadka kale yacnihii ubadkaas baayo gaaray leeyihiin laakiin taasi kama dhigna in ubadkiinu ka duwan yahay ubadada kale laakiin sidii markii dhawtay ka wada sheekaysanayda waxa laydinku eegaya samirkiina laydinku eegaya waxaana suurtagal ah boqolkiiba boqol suurtagal ah oo aan aad u dareensanahay weliba aan rabaa insha allah in ilaahay albaabo badan uu idinku furaayo in albaabada arsaaqada idinku furaayo in ilaahay idinku furayo ubadkiina kale ee aad haysataan inuu ilaahay caafimaadkooda u barakaynayo oo sii barakaynayo in ilaahay waxbarashadooda uu barakaynayo in iyagana idinku caafinayo yacnihii subaxnimadka aroorta wax laga yaabaa waa suurtagal ilaahay waxba kuma aha in iyagoo caafimaad qaba ubadkaa kala wada duwan maanta xanuunsanaya iyagoo caafimaad qaba oo midh aan qabin inay soo toosaan ilaahay waxba kuma aha ilaahayna taasay ka baryaynaa waxaan idin leeyahay waxaad tihiin waalid samir badan baad tihiin haddii ilaahayna ma imtixaamo qof ilaa iyo qofkaas uu ka soo baxay ilaahay wuxuu ogyahay inaad ka soo baxaysaan imtixaankaa layna marinayo waanad ka soo baxaysaan waanad ka soo baxdeen samirkaa aynu adkayno waxaan aad idinku dhiirigelinayaa waxaad tihiin hooyooyin ka duwan hooyayaasha kale oo ka adkaysi badan waayo waxaad u samirteen ubadkiinii oo baahiyo kala wada duwan qaba ilaahayna wuu idin jecel yahay ilaahayna wuu idinka doortay dadka kale hana u malaynina in albaabadu idinka xirmayaan albaab kasta ilaahay idin furayaa idanka ilaahay hoodo walaashay hoodo indha dheeman waanu ducaynaynaa ilaahay iyadiyo sayigeeda ilaahay ha barakeeyo hoodo waxay dalka u timi inay indhayso oo ay timaado oo ay balbalkeedii in badan ay ka maqnayd ay timaado waxay aragtay markaa dad baahiyo iyada la mid ah iyo kuwo ka duwanba ay aragtay hooda oo aan arkayno ayaaba waxa ay kasbatay intaas oo bulsho oo kala wada baahiyo cidi kuma siiso mushahar iyadiyo sayigeeda dowlada lacag kuma siiso yacnihii dad muxsiniina oo ay u bandhigtay oo ay tiri caruurtani baahiyo gaaray qabaan iyo hooyooyinka baahiyo gaara qabaan ayuunbaa runtii hoodo kusoo hagaajiya wixii ay ugu talagaleen dadkaa baahiyaa gaara qaba laakiin hoodo
cid ay mushaar ka qaadataa ma jirto ilaahay dartiiya barnaamijkan ay wataan ilaahay dartii baanay ayay haddii alla idmo ay barnaamijkan hadday dalka joogto iyo hadday dibadda ku noqotaba labadaba ay wadaysaa mana aha barnaamijkan iyo dhiisiinkeedu ay bilaabeen maaha barnaamij joogsanaya oo bilo iyo sanado ku kooban laakiin waa barnaamij ay ugu tala gashay oo ay rabto inay bulshadeeda dhinac kasta gees ilaa ka gees hadday dibadda joogaan iyo hadday dalka joogaanba ina ay gaadhsiiso marka walaalaha kale ee muxsiniinta ee halkaa iga daawanaya waxaanan aada ugu dhiirigelinayaa in walaasheen hoodo sida ay u garab gashay dadka kale ee muxsiniinta ah dadka kale ee yacni baahiya gaar qaba in ay iyagana ay allaali wixii awoodooda ah dadka walaalahooda ay ku soo garab galaan hooda mushaar cid allaali cid ay uga baahan tahay meeshaas ilaahay buu weji ka rabtay marka waxaan aada ugu dhiirigelinayaa dadka muxsiniinta ah meel kasta oo ay joogaan insha allahu biidnillah inay hoodo hawshaa ay wado inaynu ku garab galno inaynu ugu ducayno in aynu ku dhiirigelino inaanay hoodana waxaan aada ugu dhiirigelinayaa hoodana inay halkaa hooday aada walaal aad kasii abaqaado hawshaa qiimaha leh ee ilaahun koobi karo qiimeynteeda inaad halkaa adigiyo saygaaga qiimaha badan leh aad kasii wadaan ilaahay adigana ha kuu barakeeyo awlaadaada ha kuugu barakeeyo sawjkaaga allah ha kuugu barakeeyo muraadadaada oon macsi lahayna ilaahay ha ku siiyo walaal gabadh muxsinada baa tahay qofka haddaan la qirin agtiisa laga qirin waxa uu ka mudan yahay bulshada yacnihii wax qiimada ma ku fadhido hawshiisaasi markaa hooday waan ku ognahay walaalo waan ku ognahay yacnihii dadku waxay dareensan yihiin hooda aragtideeda marka la arko inaanay hooda indho qabin laakiin hooda indho iyo dhegaba way leedahay hooda yacnihii waxay dareentaa wax aynaan dareemaynin hooda waxay aragtaa wax kasta oo innaga aynu ka indhasaabanahay mana hoodana kumay dhalan maanta sidaa aynu ku arkayno hooda kumay dhalan iyadoo sidaa ay nahay ee maanta aynu isku eegayno ayaa qadartana ay u timid markaa hooday dhadheemanay waxay ku bixiyeen kooxdaadi waxay ku bixiyeen hooda kaafiya tahay mise kaabay kaafiya hooda kaafiyay khayr allah ku siiyo walaashayay intaasay kusoo gabagabaynayna anigu hadalkayga waan iska hadal badan haddana hadal bilaabo maanta leyn baan wadayaa insha allah wayskana waynoo socon doonaa bad walaalo faaduma u mahadsantahay studiogana lagu duubiyey laakiin waxaad su-aale qabto waad i weydiin kartaa insha allah walaashay hooday su-aalahaygu way fara badan yihiin buugii qalin baa soo qaatay be soo dhow laakiinse bulshada marka hore waxaynu weydiinaynaa talo maqal ma jiraan mana maqlaysaan bulshoy haa maya jawaabti waa dhankiina cid baan ku jirnaya